Bronkiitadu waxay ka mid tahay xanuunada aadka loo garanayo waxaa afka qalaad loogu yeeraa bronchiolitis. Dadka intooda badani waxay ku qaldaan xanuun kale lagu magacaabo bronchitis. Xanuunkan waxa uu ku dhacaa habdhiska neefsashada, gaar ahaan hawo-mareennada kuwooda yaryar. Waxaa lagu arki karaa dadka waaweyn, laakiin wuxuu ku badan yahay carruurta da'doodu u dhaxayso 2 bil ilaa 14 sano. 2 sano ugu horeysa waa xilliga ugu badan uu ku dhaco carruurta. Bronkiitadu waxay leedahay 2 nuuc. Viral bronchiolitis waa nooca ugu horeeya, waxay ku dhacdaa ciyaalka da'doodu ay ka yar tahay 1 sano. Waxaa keena fayras lagu magacaabo respiratory syncytial virus. Waxay inta badan dillaacdaa xilliyada jiilaalka. Fayrasyada kale keeni kara waxaa ka mid ah adenoviruses, influenza viruses, bronchiolitis obliterans. Noocani waxa uu ku dhacaa dadka waaweyn, laakiin inta badan laguma arko. Waa xaalad halis ah, waayo caabuqa kadib waxaa adkaanaya inay hawo-mareennadu sidooda caadiga ah dib ugu soo laabtaan. Waxyaabaha keeni kara waa waxyaabo xadidan, xog badan lagama haysto, laakiin waxaa la aqoonsaday in ay keeni karaan qiiqa uurada ay ku dhex jirto kiimikada sida ammonia, bleach iyo chlorine. Infekshannada ku dhaca habdhiska neefsashada. Maalmaha hore calaamadaha lagu arko xanuunkan waxa uu la mid yahay kuwa hargabka, duufka sanka, cuna xanuun, qufac, sanac burnaan, qandho iyo madax xanuun aan badnayn. Hindhiso. Maalmo kadib waxaa lagu arkaa neefsashada oo ciriiri noqota mise bukaanka inuu boobsiiyo neef qaadashada. Daal. Kalarka maqaarka wuxuu noqdaa sida midabka buluugga ah, waayo waxaa ku yar hawada oxygen. Qufac. Haddii aad carruurtaada ugu shakido calaamadahan, fadlan la xiriir dhakhtarkaaga mise dhakhtarka kuugu dhow sidaad ugu hesho talooyinka iyo dawooyinka ku habboon xanuunkan. Bronkiitadu waxaa u nuglaan kara carruurta difaaca jirkooda hooseeya, carruurta hooyadoodu naaska aan jaqsiin, carruurta dhiciska ah mise kuwa ku dhashay xaalado la xiriira wadnaha iyo sanbabada, carruurta lagu ag cabo sigaarka, carruurta ku nool guryaha ciriiriga ah.